Shirkadda isgaarsiinta Somtel ee degmada Baraawe-laanteeda xaafadda Dayax oo ay ku leedahay ayaa macaamiil badan u soo doonta adeegyada kala duwan ee ay bixiso. Xaruntan oo muhiim u ah bulshada ku nool xaafadan iyo kuwa ka agdhow, maadaama ay shaqeyso 24 saac oo shaqaalaha heegan u ah macaamiisha waqti kasta iyo xilli kasta ay diyaar u yihiin inay ka xaqabtiraan baahiyaha adeegyada kala duwan ee shirkadda ay bixiso. Macaamiil fara badan oo ka kala yimid xaafadaha degmada Baraawe oo halkan ka soo doontay adeegyada ay bixiso shirkadda ayaa ku bogaadiyay sida habsamida leh ay ugu adeegaan macaamiisha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaa soo booqday shirkadda isgaarsiinta Somtel laanteeda Dayax, waxaana si wanaagsan oo si sarfan loogu adeegay, waana ku mahadsan yihiin dhammaan shirkadda Somtel. Waxaana u baaqayaa dadweynaha ku nool degmada Baraawe inay shirkadda ready u tahay haba iyo maalin inay shaqeyso. dhammaan waxa uu baaqayaa shacbiga Soomaaliyeed inay imaadaan inta ku hareeraysan dhammaan xaafadaha Abasiyo Dayax, waxay gaar ahaan u dhowdahay garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro. waxaan leeyahay dadka inkastoo ay suuqa dhibaan inay aadaan, haddana waxaa ready u ah shirkadda Somtel ee ku hareeraysan xaafadda Dayax. dhammaan waxaa ka jirtay kaarkayga Somtel, waana ka wataa ballanteennuna waa Somtel. Maamulaha shirkadda isgaarsiinta Somtel laanteeda xaafadda Dayax, Cabdiraxmaan Maxamed Suldaan, oo ka warbixiyay ujeedada looga aasaasay xaafadan ay tahay in bulshada loo fududeeyo adeegyada shirkadda, isagoona baaq u diray macaamiisha shirkadda inay markasta diyaar u yihiin u adeegidda bulshada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa isoo booqdeen Kunyabaro TV, waa ku mahadsanaa inay isoo booqdeen. shirkadda habeen iyo maalin ayaa shaqeysaa laanta Dayax. simkaar ayaa sameynaa habeen iyo maalin. qofka oo beesa qaldoomo iyo dahabka waa u shaqeynaa macaamiilka noo imaadaan. waxaan gadnaa 24 saac, 4 qad oo internet oo 24 saacadood, qofka 48 saacadood rabo, iyo ku hadal free 43 oo sinti ah. shirkadda dadka macaamiilka oo xaafadaha oo Dayax u dhow ayaa u shaqeynaa habeen iyo maalin. kaas habeenkii dadka imaanayaan ayaa u shaqeynaa simikaarada aad iyo aad. baahi waxaa loo aasaasay laanta Dayax dadka ina internet fiican ina helaan, ina xaggana suuqana ina ku dheeraadaan, dadka inay tagaan. waxaa loo soo dhowey shirkadda xaafadda loo keenay si oo baahiga ina suuqa ina aadaan, ina xaafadana shirkad loo dhiso, ina shirkadda inay imaadaan simikaarka gobostaan habeen iyo maalin. shirkadda waa xaafaday ku taala laanta Dayax, waa ina habeen iyo maalin loo shaqeeyaa shacabka. bulshada laanta Dayax haraariga iyo saqaawadiin waa ina shirkaddan in loo soo dhaweeyay xaafadaha u dhow laanta Dayax, waa inay imaadaan simikaarada har iyo habeen in loo shaqeeyo si nidaam gacmo furan loo shaqeeyo. waana macaamiilkeena waan soo dhaweynaynaa anaga. Maxamed Qadar, Kunyabaro TV, magaalada Baraawe.